hoggaanka maanta hoggaaminaya dowlad goboleedka Puntland inuu qabo rajo ama hami inuu sidii kal hore dhacday cashuurta deegaanka intuu soo qaatay inuu halkan doorasho kaga galo in uu halkan u soo tartamo oo madaxtinimada dowladda federaalka u soo tartamo in cashuurta iyo resource-ka yare ay haystaan dadka shacabka laga qaaday in halkan la keeno mar labaad oo lagu burburiyo hami noocaasa ku jira sababta ay dhibaatada iyo ragaadka iyo siyaasad xumada iyo qalalaasaha iyo inta badan ay ugu jiraan crisis-ka siyaasadeed ay ugu dhex jiraan waa damac ku saabsan 10 xildhibaan ee SSC Khaatumo ee Puntland laga soo dooran jiray oo ka wareegay hadda oo aan dib looga soo dooran doonin oo ay tahay inaanu si cad u sheegno in ay iimaansadaan inaan mar dambe Puntland laga dooranaynin ee dowlad goboleedka SSC Khaatumo 10 xildhibaan laga dooran doono rabshada iyo wareerka faraha badan waxay ugu jiraan 10 sidii halka loogu wareejin lahaa mana dhacayso waxaan dhacayn waxaan u aragnaa dad miyirku ka maqan yahay waxaana ilahayn bay sheeganayaan dhul aan ilahayn bay ku duulaan yihiin dad aan ilahayn bay yaaniga u goodiyayaan haddii ay aqbalaan inaanay ilahayn dhulkan inaanay ka tarin karin inaanay dib uga talin doonin haddii ay aqbalaan oo miyirkoodu sidaa garto xabiis fara badan oo boqolaal ah oo sanadii 2023 gacanta aad ku dhigteen ayaa jiray oo maamulka Somaliland oo ay saraakiil iyo channel ciidan uu ka mid yahay marka maxaabiistaasi xaaladooda halkay ku dambeeyeen annagoo socon karayna ilaa Caynaba iyo Burco ayaanu ku amaray ciidamada iyadu inay istaagaan sarinta oo oog duleedkeeda oo aanay wax dhibaato geysan oo dad shacab aan gacanta la gelin oo la burburin oo aan guryahooda la gelin annaga cid walba nabadda ka jecel nabadda hadda ka jirta deegaankaasuna waa mid annaga garashadayada iyo mas'uuliyadayada ku taagan haddii aanay nafahooda u baqayn ama aanay dhuuntooda u baqayn duulaankoodu habeen ma istaageen dad annaga noo xidhan tahay annagana sababtay noogu xidhan tahay waxa weeye ilaa ay ka aqbalaan nabadgelyada inay qaataan oo ogolaadaan dadku wixii qolo waliba halka ay joogto maamul waliba halka uu joogo ee dadkiisa iyo deegaankiisu yahay uu ku ekaado inta ay ka aqbalayaan wadadu way xidhnaanaysaa isu socodkuna jiri maayo isdhexmar jiri maayo isdhexgal jiri maayo wax walba waxa ka muhiimsan qaadashada nabadda taasana naga go'an annaga marka idinka oo qura ayaa idin xiran tahay itmeedad waa waxa weeye cid kale oo u xidhnaan kartaa ma jirto sababtoo ah annaga degan meesha ganacsigii ka imaanayay Somaliland ee soo gali jiray dhinacan kale taa iyaduna way istaagtay annaga meesha joogno oo dawlad baa ka talisa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعن داود يال لجستيال واحد كسر دواتان ورئيسي جارو آدو حيسله أو مرتي إنه جيهاي وزيرك ورفافنتا دولة قبلات كSSC قاطمة أو مانتا سوغاري حرونتا دحى تلفزيون كشبله نجيب برقد ورسمه وأنو وحبدان كوي دي دونو أرمقصية maamulka SSC iyo xaaladda wadanka mudane wasiir marka hore waxaan kugu soo dhaweynayaa telefishinka Shabeelle waan dhawahay aad iyo aad baan uga mahadsantihiin wasiir marka hore waxaad nooga warantaa shaqada maamulka SSC iyo wada shaqeynta kala dhaxaysa dawladda dhexe ee dalka maadaama marar kala gedisan madaxdiina aad shir kaga qayb gasheen magaalada Muqdisho oo adiguna wali aad joogto فتح واد بعض ما هتسنتهاي دولة جولات كإسسي خاتمو الدولة فدرال كأو حكر الحياة وذا الشقين تا دولة جولات الدولة فدرال كأكر الحياة كي وهير كسرية وهو ناكسنا سيدو قولونا وانو وذا الشقينا واقرتي طبعا مركا لقال لي وذا الشقين تا الدولة الدحي يو معمولة ذا وحي حقوق هذا دولة قبلتك وكالة دولة فدرالك واحد من هو تشيران وانا واحد كحران كبعة قانقارني ماذا الدولة قبلتك SSC Khaatumo waanu isleenahay way soo dhameystirmayaan hadii la haydmo waana wax dhamaantood talaabooyinka aanu isleenahay waa dhimayaan wax processka ku jira oo soo dhameystirmayo xilligii dhameystirka ku jira
laakiin wada shaqaynta tii ugu wada shaqayn ka dhaxaysa dowlad goboleedka iyo dowladda dhexe tii ugu heerka sarreysay ayaa naga dhaxaysa. waxaad la socotaa dhowaan inuu abril inuu ku yimid ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo xukuumaddiisu ay ka mid tahay inay ku soo gaareen caasimadda dowlad goboleedka SSC Khaatume ee Laascaanood inay soo gaareen iyaga oo halkaa mashaariic badan ka fuliyey ka soo dhagax dhigay in la fuliyana aynu sugayna haddii lahayd moo dhowaan waxna ay bilowdeen wax kalena ay tegi doonaan. markaa waa wada shaqayntii ugu heerka sarreysay ayaa naga dhaxaysa annaga iyo dowladda federaalka. marka dhaqangalka ballamada iyo heshiisyada wada shaqaynta iyo arrimaha la fulinayo way socdaan labada dhan. Rooma maalin laguma dhisin Cabdifataaxow waa la soo dhagax dhigay dhammaystirkoodana waynu sugaynaa haddii lahaydmo kulan aan ahayn oo ka dambeeyaynu ku kala qaadan doonaa mashaariicda fushay insha allahu, laakiin waa la soo dhagax dhigay fulintiina waa la sugaya haddii lahaydmo. waxaa jirta shaqo ay xukuumadda idin dirtay oo ahayd hanaanka dhammaystirka dowlad goboleedka SSC iyo shirweyne inaad qabataan, marka haddaad warbixin kooban dadku ka siiso. dhammaystirka dastuurka iyo qabashada shirweynaha in lagu soo abiyo maamulka waa loo madlan yahay waana la qabanayaa haddii lahaydmo. jadwalkiisana dhowaan baa la shaacin doonaa waana shir loo madlan yahay oo la qaban doono waana insha allahu tacaala uu process garaysan yahay. waayahay marka laakiin hadma xilliga timku waa time farsamo ku xidhan oo xilliga ama bishan aakhirkeeda ama ta soo socota bilowgeeda ilaa 10keeda waa wax ku eg inaha oo time wax xilli farsamo uun ku xidhan, laakiin waa wax ka go-an dowlad goboleedka SSC Khaatumo qabashada shirkani waana waxyaabaha mabaadi'da ah ee ay ka go-an in la qabto insha Allah loona madlan yahay. waayahay taa markaan ka dhimaano waxaan rabaa inaan wax badan ka weydiino arrimo quseeya SSC. waxaan ugu horeysiinayaa maxaabiis fara badan oo boqolaal ah oo sanadii 2023 gacanta aad ku dhigteen ayaa jiray oo maamulka Somaliland oo ay saraakiil iyo janan ciidan uu ka mid yahay. marka maxaabiistaasi xaaladooda halkay ku dambeeyeen? maxaabiistaasi Cabdifataax oo maxaabiis la hayo weeye waa maxaabiis ku jirta gacanta dowlad goboleedka SSC Khaatumo waa maxaabiis la mid ah maxaabiisaha kale ee gacanta markaa nidaam ku jira la mid ah weeye. gacan dowladeed dowlad goboleedka SSC Khaatumo waxay si gaar ah isaga xil saartay ilaalintooda, xanaanadooda, caafimaadkooda iyo wixii maxbuus xaq u lahaa inay helaan si buuxda ayaanu u dhammaystiray iyadoo aan cidina naga caawin. annaga ayaa gacanta ku hayna nabadgelyadooda iyo caafimaadkooda iyo ilaalintooda sidii ugu heerka sarreysay ayay u nool yihiin oo maxbuus u nool yahay. marka cidna idinma haysa idinka haya? annaga hayna gacanta ku hayna cid kale noo hayn kartaa ma jirto. maxaad ka damacsantihiin marka? ma sida un baad u haysan doontaan intay ka gaboobaan? ma qorshe kale ayaa idin xiga? maxaad ka damacsantihiin? niyahu waad mahadsan tahay. dadkani horta waxay ahaayeen dad tacaddi geystay. laba nooc bay isugu jiraan. saraakiil weliba leh hoggaankii ciidamada uu ku jiro, hoggaankii sare ee ciidamada, raggii madaafiicda ridayaa ku jira, raggii takhtiidka Faysal Cabdi Wataan baa loo jeedaa. maya rag kale waxaa jira gaar ugu qoraa qoryaha waaweyn ugu qoraa oo madaafiicda iyo khariiradaha duqeynta iska lahaa. rag Faysal wuxuu ka mid ahaa wuxuu ahaa hoggaankii howlgelinta dagaalka ciidanka joogay. saraakiil kale oo la u dhigantaa jirtay oo la mid ah oo la qorsho ahayd. boqolaal ciidan oo ciidankii dhibaatada geystay ayaanu gacanta ku haynaa. waxay ahaayeen ciidankii askarta ahaa ee dableyda ahayd, waxna waxay ahaayeen saraakiishii hoggaaminta lahayd. maxkamad bay sugayaan, cadaaladayna mari doonaan. wax alla wixii lahaa
mas-uuliyadda wixii ka dhacay 9kii bilood dowlad goboleedka SSC Khaatumo wixii ka dhacay ee shacabka loo geystay waxay mari doonaan cadaaladda wixii ay ka helaan ciidan hal guuta u dhigma baanu gacanta ku haynaa oo dablaya oo ciidankii la amrayay ah waxay u xidhan yihiin raggii soo geliyey dhibaatada markii horeba macna ahaan hadda raggii dhibaatada geystay ama rajiimkii hore ee gacan ku dhiiglaha ahaa waa tii la bedelay dhowaan la bedelay laakiin mabdi'iyan ka joogaa wax badan kagama duwana yani hogaamiyaha Soomaaliland ula jeedaa sidaa wey wax badan kagama duwana dadkani dad la soo dhibaateeyey oo la geliyey barnaamijkan oo dembiyadan gacanta loo geliyey bay ahaayeen askartu haddii ay qaataan mabda'a nabadda oo ay qaataan oo aqbalaan oo iimaansadaan oo miyirku u soo noqdo waxaan u aragnaa dad miyirku ka maqan yahay waxaanay lahayn bay sheeganayaan dhul aanay lahayn bay ku duulaan yihiin dad aanay lahayn bay yacniga u goodiyayaan haddii ay aqbalaan inaanay lahayn dhulkan inaanay ka tarin karin inaanay dib uga talin doonin haddii ay aqbalaan oo miyirkoodu sidaa garto macno badan noogu jirtaa ma jirto inaanu iska haysanno ilaa ay aqbalaan laakiin waxay ku jiri doonaan halka ay ku jiraan waad ka haynaysaa waa haynaynaa maxaa yeelay waa askari haddaanu sii dayno hadhowta furinta dib u soo gelaya amar buu ku shaqeeyaa amar buu ku shaqeeyaa hadduu mid ku shaqeynaya kaayaga aanu gacanta ku hayno ku shaqeynaya halkaas inuu noogu jiraya waaya hadday aqbalaan nabadda oo ay gartaan waxa ayan lahayn waxa ay doonayaan inuu yahay waxaanay lahayn oo ay gartaan dhibaatadii rajiimkii hadda la bedelay gacan ku dhiiglaha ahaa uu ka geystay SSC Khaatumo in mar labaad lagu noqdaa inaanay macno badan samaynayn hadday sidaa gartaan annagu nabadda annagaa cid walba uga jajaban annagoo socon karayna ilaa Caynaba iyo Burco ayaanu ku amaray ciidamada iyadu inay istaagaan sariinta oo oog duleedkeeda ah oo aanay wax dhibaato geysan oo dad shacab aan gacanta la gelin oo la burburin oo aan guryahooda la gelin annaga cid walba nabadda ka jecel nabadda hadda ka jirta deegaankaasuna waa mid annaga garashadayada iyo mas-uuliyadayada ku taagani haddii aanay nafahooda u baqayn ama aanay dhuuntooda u baqayn duulaankoodu habeen ma istaageen marka July 2023 markii aad ka saarteen Gooja Cadde oo ilaa iyo og meel ku dhow dagaalku ka socdo August afan 2023 ciidankiina idinka amray inay ka istaagaan annaga amray annaga u diidnay in maato iyo shacab guryahooda jooga inaan gacanta la gelin oo wixii ay sameeyeen wax lamida inaan samayn annaga garanay macna badanna kuma jirin in wixii ay sameeyeen wax lamida inaanu samayno shacab iyo maato iyo dad maxasa inaanu burburino annaga ka xishoono gacmaha laakiin ilaa iyo fariismaha og iyo meelo kale awood baad u lahaydeen awood baan ilaa Burcaan Caynaba ayaanu u lahayn inaanu soconno oo ciidamadana ay socdaan waa burburinay oo ka dhigis baanu ku samaynay in ka badan 176 gaari oo technical baa laga qabtay waxaa la qabtay hal guuto iyo dheeraad dhammaystiran oo ciidana la qabtay wixii dhintay cagta lala dulmaray subaxa wixii ka aan ahayn dee waa maxaabiistii abid ugu badnayd oo Soomaaliya kala qabato gudaheeda baanu gacanta ku haynaa haddii aanan annagu garashaduna hagaynin oo aanan tixgelinaynin waxa dadku yahay aanan tixgelinaynin oo aanan nabadu naga goonayn oo aanan diyaar u ahayn ilaa Burcaan socon lahayn wax fool xun oo wixii dhacay 25 August ugu dambeeyay wixii dhacay wax ka fool xun baanu geysan kari lahayn laakiin garashadan xadiday annaga laakiin imika seefta galka dib ugu celisan dib waxaanu ugu celinay dee maadaama aanu joogno dhulkii aanu xaqa u lahayn ee dadkayagu joogay macno badan noo samayn mayso inaanu subaxba reer cid ku duullo oo aanu dowladaha deriska nagu maamulada deriska nala ku duullo macno badan noo samayn mayso waxaan rabaa qaybaha kala wareysi inaan u sii daadegno
weli waxaa xiran wadadii dheereed dabcan ilaa iyo beledweyne inta ka baxda Puntland dhexmaraysay laascaano dhexmaraysay oo ilaa iyo oo galaysay waana wado weyn oo nolosha ummadda Soomaaliyeed ku tirsaneed tan ilaa 2023 markii dagaalku istaagay wadada maxaa idin kaga qorshaysan yes u xiran tahay wadadu niyo horta dowlad goboleedka SSC Khaatumo waxaan ku sheegay waa bridge-ka Soomaaliya isku xidha haye wadadani wada u xiran weeye arrimaha nabadgelyo u xiran mar rabno maamulkaas oo aan nabadda qaadan wadadaas sina uma fudba karto wadadu annaga inoo xidhan tahay annagana sababta inoogu xidhan tahay waxa weeye ilaa ay ka aqbalaan nabadgelyada inay qaataan oo ogolaadaan dadku wixii qolo waliba halka ay joogto maamul waliba halka uu joogo ee dadkiisa iyo deegaankiisu yahay uu ku ekaado inta ay ka aqbalayaan wadadu way xidhnaanaysaa isu socodkuna jiri maayo isdhexmarra jiri maayo isdhexgalle jiri maayo wax walba waxaa ka muhiimsan qaadashada nabadda taasaa naga go-an annaga marka idinka oo qura ayaa idin xiran tahay waa waxa weeye dee cid kaloo ay u xidhnaan kartaa ma jirto sababtoo ah annagaa degan meesha ganacsigii ka imaanayay Somaliland ee soo gali jiray dhinacan kale taa iyaduna way istaagtay annagaa meesha joogno oo dowlad baa ka talisa dowladdaas iyo maamul goboleedka Somaliland cilaaqaad nabadeed kama dhexeeyo marka nabadgelyada wax walba asaas u ah ganacsiga isdhexmarka wax kala qaadashada iyo bulshada isdhexgalkeeda nabadgelyo waa asaas ilaa ay nabadgelyada iyagu qaataan waxa la yiraahdo xaggooda ka xiran tahay sababta ay u xiran tahay xaggooda annaga waa noo xiran tahay laakiin sababta ay ku xiran tahay xaggooda jirtaa waxaan rabaa inaan u nimaano magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn dabcan maamulkiina uu ka tariyo ayaa duq magaalo u soo magacaabay Puntland marka arintaasi warta ma ka warhaydaan Abdulfataax aad baad mahadsan tahay waa barnaamij aanan islahayn aad ku godo dhacdada ama aad dhex gashi laakiin mar haddaad adigu aad soo taabatay waa khasab in midhiyo laba laga yidhaah dowlad goboleedka Puntland aan marka hore isu kaa dul taago annaga horta waxaa noo kala soocan oo dad badan iskaga jira dowlad goboleedka Puntland iyo leadershipka maanta stage-ka saaran ama hogaaminaya maanta dowlad goboleedka Puntland waa dowlad goboleed la xajeclo badan naga hayso xoog iyo xoolo iyo xigmad ba aanu ku bixinay dhismihiisa aanu lahayn waa uga la xajeclo badan nahay cid walba dad ahaan iyo waa maamul dhul wadaag dhulka aanu isxigsanno dhalasho iyo dhaqan wadaag iyo dhiig wadaag iyo hiil wadaag iyo aanu intaba nahay marka dowlad goboleedka Puntland isagu halkaasuu noo taagan yahay waa backup noo yahay waa isku tiirsanna haddaanu soo noqdo leadershipka hogaaminaya maanta ee hoggaanka Puntland haya waxaad moodaa xoogaa in siyaasadda uu ku fiqi habaabay oo qaladaad badan uu galay damaca siyaasiga ah ee ku jira darti waxaan ognahay oo ka warhaynaa hoggaanka maanta hogaaminaya dowlad goboleedka Puntland inuu qabo rajo ama hami inuu sidii kal hore dhacday cashuurta deegaanka intuu soo qaatay inuu halkan doorasho kaga galo in uu halkan u soo tartamo oo madaxtinimada dowladda federaalka u soo tartamo in cashuurta iyo resource-ka yare ay haystaan dadka shacabka laga qaaday in halkan la keeno mar labaad oo lagu burburiyo hami noocaasa ku jira sababta ay dhibaatada iyo ragaadka iyo siyaasad xumada iyo qalalaasaha iyo inta badan ay ugu jiraan crisis-ka siyaasadeed ay ugu dhex jiraan waa damac ku saabsan 10 xildhibaan ee SSC Khaatumo ee Puntland laga soo dooran jiray oo ka wareegay hadda oo aan dib looga soo dooran doonin oo ay tahay inaanu si cad u sheegno
in ay iimaansadaan inaan mar dambe puntland laga dooranaynin ee dowlad goboleedka SSC khaatumo 10 xildhibaan laga dooran doono rabshada iyo wareerka faraha badanna waxay ugu jiraan 10 sidii halka loogu wareejin lahaa mana dhacayso oo waxaan dhacayn waxaa jirta oo mar dhaweyd weydiinaysay wasiir sheegay in dowlad goboleedka SSC khaatumo uu ka mid yahay puntland wasiirka faafinta puntland dabcan waxaan isleeyahay haddii inaan dambe iga raacayn haddaan idhaahdo waa dadka special needs ka qaba muxuu qabiyaa dadka special baahiyaha gaarka ah dadka qaba maxaad ula jeedaa marka yacniga dadku qofku haddaanu faham buuxa ka haysan waxa uu ka shaqaynayo waxaa laga yaabaa wax foolxumo ah oo badan inuu iskaga dhaco wasiirkaasi ama dad waxaa jira halkaa jooga oo magac ahaan ka soo jeeda SSC khaatumo laakiin u shaqeeya dowlad goboleedka puntland dadkaasi dad cidna matala maaha dad ku tiirsa cid ay matalaan uu jira ama dhul ay ka taliyaan uu jira maaha waa dad farsamo yaqaano ama dad xirfadlayaal oo halkaa jooga weeye waxaa sidoo kale maalin dhaweyd hadlayay madaxweyne ku-xigeenka oo lahaa mashaariic baanu ka fulinaynaa laascaanood iyo buuhoodle aanu ka fulinaynaa waxbarasho waa nooc iska kursi ilaalin ah nin baa waxaan malaynaya cal madow baa la odhan jiray wuxuu yihi haddii aad dad tahay waa caqliga sida ta daayeerka damacaagu waa midaan dhaafi karin daaqadoo hela in nimankaasi ku howlan yihiin inay ilaashadaan kursiga aan matalaada lahayn ee ay joogaan hadda inay ilaashadaan waxaan ahayn oo ay dhibaatada iyo deelqaafka iyo foolxumada ay u geysanayaan ma jiro waa intaasi ku siman tahay inay kuraasta bilaa matalaada ay ilaashadaan waxaa jirta waan uga faa'iidaysanaya waxaa jiray hadal maalin dhaweyta aada loo hadalhayey oo deelqaaf cad ahaa oo gef ahaa oo meel ka dhac ahaa oo ka baxsan xayndaabka siyaasadda ra-iisul wasaaraha soomaaliya in mas-uuliyiin ka tirsan puntland in si cad loo soo aflagaadeynayey oo looga sheegay waana wax siyaasadda waa lagu kala aragti duwanaan karaa laakiin waxaa xayndaabka siyaasadda ka baxsan in laysnasabad caayo in si foolxumo ahoo qaawan wax laysaga sheego anagoo madashan uga faa'iidaysanaya waxaan xaal ka bixinayaa nin oday qiso waxaan u malaynayaa aan halkan hadda aan faahfaahinteeda aan waktigu inoo saamaxay waa nin la odhan jiray aadan carab oo deegaanka buuhoodla ka soo jeedi jiray baa nin uu arkayey markaa inuu de uu ka dhac sameeyey ayuu gabay ka tiriyey uu xaal kaga bixinaya markaa waxaa ka mid ahayd wuxuu yidhi waxba cirada ha u gutirin guudka kaga taale ma guddoomiye waa iska oday guufanaystaa garhkaa eedda noo wuxuu yihi anigoo kale godob xigaa lagu guhajaa garhkaa eedda noo soo duway ma aha geed joog ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo deegaan ahaan dadka uu ka soo jeedo oo dad ahaan aanu isnahay laakiin jefiye marka loo hadlo aada loo dhibsaday sida uu ninkaasi u hadlo xaal baanu ka bixinaynaa arrin qabtay ra-iisul wasaarahana ma ahayn deegaanka iyo dadka uu ka soo jeedana arrin qabta ma ahayn arrin gafa buu ahaa xaal baan ka bixinayaa arrinkaa anoo laga yaabo in lay aaneeyo xigta ahaan ninkaasi waxa uu sheegay xaal baanu ka bixinaynaa waana ka raali gelinaynaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ah nin dadka iyo deegaanka reer SSC khaatumo wax badan u galay oo mas-uul horoo soomaaliyeed aanu u gelin abaal weyn aanu hayno in gaf noocaasi u yimaado aad baan uga xaal bixinayna waana ka raali gelinaynaa